samse maxamed cali waxay la murugaysan tahay tacaddi kufsi ah oo gabadheeda loo geystay ilmada ka qubanaysa iyo guud ahaan tiiraanyadanise dhab ma ahan ee waa dhalanteed maadaama aanu codka hooyo Soomaaliyeed ku hadlaaya waxaan wiilasha ka codsanaya inay gabdhaha walaalahooda in ay ka soo qaadaan inay waa jilista filim la magac baxay Ha Isdhiibin Ifraax oo dhalinyaro ku nool Muqdisho ay ka mataleen dhibaatooyinka ka dhanka ah haweenka sida kufsiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha Soomaaliya dhalinyaradan ka kooban rag iyo dumar ayaa gabigoodba isu garabsaday inay sameeyaan wax uun ay kaga hortagayaan tacaddiga loo geysta haweenka Soomaaliyeed filankan ayaa soo koobaya in la kufsado gabar kadibna looga xaaltamo si ku salaysan dhaqan ayadoo arintu ay galayaan odayaal dhaqmeedyo balse waxa lagu adkeynayaa in sharciga lala tiigsado cid kasta oo dumarka dhibaataysa lana qaadan wax laaluush ah halima isdinti gabadha waa kula dhalnay waana macnaa ilaahay ku idmaaya dhibka ku dhacayna waa nagu wada dhacay waana macnaa martabteedana waa gelaynaa Faysal Bile waa isu dabaridaha iyo qoraaga filankan waxa uu ka waramayaa ujeedka ay mowduucan u xisheen runtii filimkan waxa uu soo gudbinayaa xaalad dhaba oo jirto wuxuu ka hadlayaa arrimo dhaba oo inta badan odayaasha Soomaaliyeed ku dhaqmaan xilliyada qaar ee kufsiga la geysto runtii kufsiga markii uu dhaco dadku siyaabo kala duwan ama ay odayaashu xaliyaan dhaqanka oo filimkan uu soo gudbinayo waxay tahay dhaqanka in gabadha markii la kufsado kaleeto iyo odayaal isku maadan ay ka shiraan oo gabadhii si hoos arinteeda loo xaliyo oo ninkii gabadha kufsaday aan sharci la geerin waana sababta mar walba kufsiga u siyaaday sababta qofka markuu gabadha kufsado wuxuu og yahay in odayaal ka fadhiisanayaan waana arinta sababta in mar walba kufsiga u siyaado Samse Maxamed Cali oo kamid ah jilayaasha filanka ayaa iiga warantay doorka ay ku lahayd iyo waxa ay ku dooratay adeerada gabadha markaan u sheegay gabadha dhibaatadii haysay meeshii ay rabeen inay laga rabay inay gabdhahaas ay u sameeyaan in ay garab galaan in ay sharciga la tiigsadaan in ninka abaalkiisa laga waraabiyo abaalkeedu waxay ka dhigaan inay bacmado iyaga lacag ku sitaan ay keenaan anigana saas darteed inaan aniga iyo gabadhaydu aan aarsano aan go'aan ku gaarnay sababtu ay tahay haddii aysan taasi dhicin oo aan laga kululaan oo aan hooyada iyo gabadha iyo aabuhu hadduu nool yahay intaba aan laga dhiidhin waxaas wax istaagaya ma aha dhibaato ayayna u tahay gabdhaha Soomaaliyeed dhamaantood tacaddiga loo geysto dumarka Soomaaliyeed waa mid inta badan ka dhaca Soomaaliya ayadoo la isugu daro kufsi iyo in la dhaafiyo nafta Basra Maxamed Cismaan oo ah atriishada filankan la magac baxay Ha Isdhiibin Ifraax ayaa dhinaceeda ka hadashay ayadoo ii sheegtay in ujeedada ku kaliftay ay tahay dhibta lagu hayo haweenka Soomaaliyeed xilli walba kufsi oo kale hadda gabdhaha waxa maalmaha magaalada ku socda waxay tahay in gabadh inta la kufsado ama dabaq laga soo tuuro ama la dilo ama jirdil loo geysto muhiim waxyaabahaas oo kale filanka doorka ugu muhiimsan aniga igu socda aniga waxa ku jiray in aniga dib lii geysto lii kufsaday oo kale oo maxaa la dhahaa sasa ku jilayaan filimka wallahi aad ugu faraxsanahay inaa filimkan ka soo muuqdo maanta oo dad badan afkooda ku hadlo aniga wax matalayo filimkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalkeena Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacayeen tacadiyada kufsiga ee loo geysanayo dumarka waxaana socda wacyigelin ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed filimkan ayaana qayb ka ah Safiya Ismaan Cabdulla Shabeelle TV Muqdisho